مروة آمن ورث الشيخ محمود جردي يا مروة القعاد دالك مروة رحمة حاج محمد سلطان وحكى لهم صلاة وضريا دمان هوينها رئيس ملان أونلاين هاي مناسبة هوينك ماتا نقول عيد فرحة هذا وروك هوينك قرنك نو يقول كعوض ماتا وحكى قيل قادني أنا أوساكا la beernay xildhibaanada golaha deegaanka oo ah gabadha kaliya ee u soo baxday golihii deegaanka ee degmada Boorama dhir ay ka beerayeen bartamaha magaalada dhammaan dadweynaha reer Boorama waxaan leenahay dhirtaasi waa bilow dhammaan bidicda magaaladuna way naga wada dhaxaysa sidaa daraadeed waa in nagala qayb qaadatiin wadada faras magaalaha oo dhirayn ka bilownay ilaa eeroodka ilaa jaamacada oo jaamacadu iyo soo gaarsiinayso xagga magaalada inaguna halkaan ka sii qaadi doono xildhibaanada ayaa dhirtaa fikirka iska leh golaha deegaanka ayaa iyagu hawshaa leh annaguna waan kula jirnaa marka maanta waxa kale oo kaga qayb qaadanay anaga oo ku caawinay raashin bil ah ugu deeqnay isbitaalka TB-da ee degmada Boorama waxa kale oo maanta kaga qayb qaadanayna dhalinyarta quruxda badan oo muddo 2 bilood u soo tababareynay siday dhaqankooda iyo hidahooda ugu faani lahaayeen maantana way ka mariyadaleeyeen waa 150 wiil iyo 50 gabdhood intii ugu horeysay ayaan ka soo xulay inta kalena tababarku uu u socdaa dhammaan waxa ay maanta wacid weyn كل عام وانتم بخير ومالكم وينكم maanta qabadkeedu ma yara magaalada golaha deegaanka oo garab taaganayeen magaalada golaha deegaanka maanta waxay beertay dhir runtii hadaynu dooranahay toban fara magaaladu aad loo qurxanaanahay waxaan soo jeedinayaa haweenka Soomaaliland gaar ahaan haweenka soo jeeda awdalka inay qurxiyaan gobolka awdal sida ay xildhibaanadu maanta ugu kacday annaga aan ku garab taaganahay waxa kale oo maanta idin sheegayaa أنا صوت الرعب. أنا أشوف كابتشر سجاش شرق وحيرنا يوحي ودان يوحي بلادنا من ما مستان. مركب من أنا كمان ممكن إحنا وحنا فينا صدقنا ما ينوتها وولاده وتذكرني لا عامل وين وحنا يما ضد الله سبحانه. إحنا ذي خوالها تعرفين تكتيبين صدقنا لنا قبيل لنا كحنا وحياة لنا مركا عيسو جسنا ما هو هيسين وقتها قبيل كاتبين قف صح حبستي بالسوية لا لا حطينا ويتعال حطينا وين وحنا نسوينه وياه أنا كسر على وياه كسياش كذا بدل أيه سيسلون قف والله ما هو وين وحنا صدقنا على صدقنا إذا بعنا يا دكتور كنت إذا شوفتها يا هو وينها دليل بقول لك بدل أنت سلام سوجيدية أروح مع النقيا إلهي سكون كاني هذا الشان شرف عليه مرة بعد وحنا هذا يسكله قبلها أوروكا وينها قرنكا إذا في عن سوء أجاسبي مرة بعد كل هذا الكود معضي وحنا نقدر سنة إن كل قادم يهمل يقدروا مروده بالحوينة هي مروده اللبات مروده كوباد هي مروده اللبات هي دمان هو وينها أدوك كارهان هو سماه لنا نكونوا هو سوكو قادم اليوم مالته وين إسرائيل دمارسو وحنا كان عمليو يجرا ودريا dhalinyarada yaryar sida quruxda badan loo tababaray naantii aad baan ula dhacay dhamaynta inta dalka joogtay waxaan hadda iska leh master dacar maxamed geelle oo caruurta baray halka ka sii wad caruur fiican jiil fiican dhaqankeeni uu sii lumaya dad waaweyn buu ku
هيدي خيرو ودلال دير سو غلاي كدib markii la aqoonsaday dhibaatooyinkoodii ay soo mareen wanaagii ay ku bedeleen dagaalkii labaad ee adduunka wixii ka dambeeyay oo la gartay markii raggii ku dhamaaday dagaalada in xoogii haweenku muhiim yahay wax badan ay nolosha ka bedeli karaan taasoo loo asneeyay 1945 inay noqdaan maalinta haweenka maalin lagu gudbiyo fariinta haweenka isla markaana wax laga qabto dhibaatooyinka ay ku jiraan runtii waxaan halkan hambaliyo aad u mug weyn uga dirayaa marwadeena qaranka ah marwa Aamina Maxamed Jirde oo ah astaanta Maaris ee Soomaaliland waxaan kaloo u dirayaa hambaliyo marwada labaad marwa Raxma Maxamuud Xaaji oo niyadana leeyahayna hambaliyo runtii maanta maalin soo koobi karaya maaha maalin hadal lagu kala yiraahdo lagu kala tagay maaha waxayna lahayna halgudeg aynu ka tixraacno laakiin maanta waxaynu oran lahay halgudegeena gobolka Awdal inuu noqdo sidii tacadiyada wax looga qaban lahaa maadaama uu kubsigii badan yahay iyo shaqooyinka kale hablaha lagula dhaqmo ama dumarka guryaha waxa joogaan in iyada la iska garab galo loo mid noqdo sidii wax looga qaban lahaa run ahaantii taasi waa inta cilmiga inaga xuquuqdeenu maalin kaliya islaam haddii aynu nahay kuma soo koobi karno sababtoo ah rasuulkeennii Maxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa inoo keenay diin cadaalad ah oo musaawi ah haweenkana ka soo saartay mugdigii iyo dhibaatooyinkii ay ku jireen taasoo kala qayb dhigtay in haweenku ay helaanba aayado ama suurado u gaara oo Ilaahay si toos ah uga hadlayo una ku sheegay xuquuqda iyo saamiga ay ku leeyihiin dumarku dhinaca diinta islaamka rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam ma cadaadin jirin waa uu kala qayb qaadan jiray talada dhaqaalaha oo kale caafimaadka oo kale waxbarashada oo kale xitaa dagaalka ayaan farad dumarku ku noqonin laakiin wixii kale deersayda way ka qayb qaadan jireen taasina in la ogaado muhiim ah in maalintan loo garto in haweenku ay leeyihiin xuquuqdoodii maanta ay tahay sanada ee maalmaha kale ee sanadku ka kooban yahayna la yidhaahdana wax xuquuqa ma lihidin runtii waynu ka mug weynahay ilaahay baa quraankiisa inoogu sheegay laba maadada ee kaliya ee dumarku raggu inaga horeeyaan waa dagaalka iyo dhaxalka sababa ilaahay haweenka uu ku asteeyay uguna nasteexeeyay ayuunba maxay hayday inooga badan yihiin oo doorba kala jira loo baahan yahay ayaa qodani doonaa walaalayaal aad iyo aad waxaan ku salaamayaa dadkii halkan inagu soo casuumay ee aan kala soo qayb galay xafladan sharafta leh ee ballaaran intii soo ajirtay intii dadka u yeedhay inta isku soo hagaajisayda aad iyo aad baad u mahadsantihiin mahadna ilaahay baa intaa kadib waxaan tacsiyadaynayaa oo dhammaanteen tacsiyadaynayna gabadhii Soomaaliland ee inaga mid ahayd ee walaasheen ahayd marxuumadda gacanta xaaraantii nafteeda goysay ee si aan la arag oo la maqal oo ilaahayna waxaan xaqiisa oo la ilaahay raalli ka ahayn waxaan aragnay oo maqalay la filayayna aan ahayn dadkii ay ka baxday gabadhaas hadday ahligeedii tahay hadday ubadkeedii tahay hadday asxaabteedii tahay iyo intii qaraabadeeda iyo ahalkeeda ahayd iyo Soomaaliland oo dhan iyo ka tacsiyadaynaynaa haddii aynu nahay gobolka Awdal haweenkii gobolka Awdal walaalayaal waxaad ogtihiin dagaalku ma aha uu kaa xabadda kuwa waliba anigu waxaan horeysiisanayaa kuwa walba dagaalku uu leeyo nuuca aynaan maqan aynaan aragba waa ka maanta dhacay haddaba hooyadu
munaasabadan maanta loogu talagalay haweenweynaha adduunka ee meel kasta laga xusayo waxaan leenahay ciid wanaagsan maadaama u tahay haweenka khaas maalintani waxaan u mahadcelinaynaa gudoomiyaheena golaha deegaanka oo aad hawsha noogula soo qayb qaatay maxaan ku dhadaa fanka ugu badan naga bixiyay hadday tahay dhiraynta hadday tahay sadaqadii hadday tahay xafladanba in badan la soo gartaagnaa laguna dhiirigelinayay maanta sida quruxda badan lagu qabsanto aad baan ugu mahadcelinaynaa waxaan leenahay waa gudoomiye dhalinyaro oo fahmaya wax walba oo bulshada u dhan u ah waxaan leenahay maxaan ku dhadaa haweenka kale ee ku dhaqan gobolkan ee degan ha loo sare kaco waxqabad haweenku dhexda ah xidhaan lacagtii waxay ku dambaysay dumare u sare kaca sida caasimada awdan u dhisi lahaydeen ee Australia uga dhigi lahaydeen aad u qurxin lahaydeen magaaladeena hadday tahay wadooyin hadday tahay kaawayaashii dhaqaalaha iyo hadday tahay dhinac kasta oo arrimaha bulshada oo loo baahan yahay hanaan u gargaarno dadkeena tabaalaysan ay u horeeyaan curyaamiintu dadka dhaqtarada jiifaan dhimirka iyo dhaxanta sida hore uga soo hadalnay aan garab istaagno oo dadkeena wax siino u damqanno kulaha eenu ku tari karno diyaar baanu idin leenahay waayo gobol walba uu xabow ku caabaxay inagu hidaha iyo dhaqanka waxaanu ku soo qayb galnaa qaybta sayliciga oo aynu caan ku ahayn waxaad moodaa in imika naga wabilaqaysi oo gobollo badan waxaan arkay sayliciga berwoodooda xagga bergeedka waxaan waa baalka meesha meela kaga dhicinay bal waxaan idinka yeernaa buuramaanu qayb idinka keenaynaa duurka dambe bal bahasha halkaa ku joojiya runtii ciyaartaan ka dhacaysay mid qiimo leh runtii qof kastoo aqoon u leh uu riyaaqi karayay sheekos lamana haleelin intii halkaa fadhiday sheekos lamana haleelin gabdhaha iyo wiilashaas baanu ku maqnay waa runtii hawl inaga maqnay oo loo baahan yahay in halka laga xoojiyo uniformka hadduu kabaha yahay hadduu dharka gabdhuhu xidhanayaa yahay hadduu dharka wiilashu xidhanayaa yahay waxaa loo baahan yahay wax isku mid ah oo midaysan in la xidhnaado saas u qurux badan yahay xagga ayna dheerarka laftigiisa waxaan isleeyahay ha loo xulo oo kulley qaybay ka leedahay ciyaartu qayb walba in isleeg ha loo xulo oo يعني أن كلا دارين واي باش مركز الصبح حسام وقتها كبه لفتقو واي أنا إسكون وميد ولا إسكون ذاك أما عدان أما عسان أما ميد إسكون ميدهين إلا سمايا أما أروكا قرق ناو ونقرب تاجنين wixii aanu ku tiri karayn oo ku tarnay waxaan jecelnahay halka inaanu ka sii wadno maanta cid aan dumar ahayn lama salaamay runtii meel kastoo la joogo laakiin waxaan filayaa idinkuna inaydaan sii xadgudbine wixii diintu idin ogasha inaad ku ekaataan inaydaan taraarixin halkan farduus isku duwaa wasaaradda kulley dacadiyey sheegtay way jiraan laakiin ilaa xadka haddana maanta dacad kama hadlimayno wax farxadna umaynu ka hadlaynaa maanta waayo maalinta farxadiina waa maalinta keliya aad leedihiin rag la salaami maayo xildhibaano la salaami maayo waxay ku egtahay oo keliya dumarka xagga saxaafadda sucaal baa kasoo gelisay cid kale la salaamaya ma jirto maalinta keliya idin haneenigu waxaan aad iyo aad uga mahadnaqayaa cidda soo agaasintay xafladan aadka u quruxda badan walow aan jeclaa howlo badan oo yaalay inaan dhammaystirto haddana waxaan ugu samray xafladan qiimaha ay leedahay maanta ayaa ugu samray runtii waxaan jeclahay halka inaad sii wadataan intayna cudurdaarka howlo badan oo yaala awgeed baan idinka tegaynaa ani xildhibaanadii la socdaa waxaan jeclahay hadduu ilaahay idhaahdo howlo inay halkan nooga soo socdaan wax kastoo aad nooga baahataanna waanu idin garab taaganahay kol haddii maanta dhakhtarkii macaawinaad u geyseen hawshan halkan ka socoto dhirayn la bilaabay xildhibaanadu hor kacayso waxaan u malaynayaa eid maalis baaba ka waxqabad badan maalmaha kale ee xuska aynu samayna inta badan waxaan jeclahay maalmaha la xusaya haddeed competition baa ima doona hadduu la idhaahdo in la tartamo oo la idhaahdo sideedii maalis baa naga wanaagsanayde aynu ka sii badino halkan waxaan ka salaamayaa ururka haweenka jamhuuriyadda somaliland gaar ahaan gobolka awdal waxaan kaloo hambalyo farxadda munaasabadooda ku beegan aan u dirayaa marwada koowaad iyo marwada labaad iyo dhammaan haweenka jamhuuriyadda somaliland iyo
madaxda haweenka ururka gobolka Awdal xildhibaanada golaha deegaanka waxa kaloo aan ka salaamayaa dhalinyarada wiilal iyo gabdho ee ka soo qayb galay iyo macallimiintooda ku tababaray ciyaaraha quruxda badan ee daawaneynay ama oo ku hadlaya magaca isbitaalka TVda ee Boorama iyo magaca wasaaradda caafimaadka ee gobolka Awdal isagoo isku duuliday aanu joogin munaasabadan kullay waxaan uga mahad celinaynaa ururka haweenka kaalinta ay kaga jiraan bulshada oo ay tusaale u tahay maanta oo ay deeq raashina gaarsiiyeen isbitaalka TVda oo baahi weyn ay ka jirtay waxaan kaloo lagu bogaadinaynaa kaalmaha kale ay kaga jiraan qoyska iyo horumarka bulshada ama waxbarasho ha noqoto ama caafimaad ha noqoto ama horumarinta qaybaha kaleba ha noqotee kullayna waxa weeyaan sanad walba waxa loo xusaa in la xuso oo la ogaado kaalinta ay haweenku kaga jiraan bulshada iyo waqtigii badnaa ee ay soo martay gabaygan wuxuu si gaara ula hadlayaa dhalinyarta waalid caaqa ee markay weynaadaan afka ku taaga hooyooyinkood maansaduna waxay ku bilaabaysaa sida tan hiigsigii horeetiyo hantaaqadii iyo culayskii halgan buu ahaayo hal sano 3 laa silic bay ku noolay hal midhi gudaheed horaadkay ku siiso haraad maa dareemine hor alaad u naaxdo dibiraad aroortii dhabarkeeda jiifta habeenkii kolkay tahay kashkeedaad ku gamacdaa halgankeega hooyadu intaa kuma istaagine 6 ku adoo gelin wixii aad dhibgaysaba dhabarkay ku qaadaa halgankeeda hooyadu intaa kuma istaagine duruustay ku geyso dugsigay ku keento darbi inaad u hooyatana dhagar bay la tahayo way kugu qabowdaa habeenkay ku weydana hoog bay u tahayo hurdo weystaayaan qaangaadh markaad tahay inaad madaxa taagto tag eeyaad tiraahdaa dawadeeda maahee dhalin yahay halowsani halgankeega hooyadu hubaal u fogaayo halkan kuma ekayn karo hiilkaad lahaydeen hooyadiina weeyaan hoggaankaad lahaydeen hooyadiina weeyaan soo diray sabihiyo dulqaadkiyo magac doobileed iyo daliilkeeda nabadda nawbaa damaashaan nibca lagu dangiigiyo daar midab qurxoon iyo dabaq la isa saariyo aalado la daawado qalab daymada uroon dermadiyo sariiraha dugsi baarax lagu lado daban iyo haweenoo dusha looga sima yahay dadku aanay kala xigan doox weeyi webiyo ninba dawliskiisiyo dookhiisa dhaafsado dabiibaan la huriyo waa doog tacliintuye dugsigiiyo waxbarashada